markii madaxweyne xasan sheekh uu magacaabay agaasimaha hay'adda niisa mahad salaad maxamed oo ka mid ahaa saaxiibadiisa gaarka ah iyo maalin uun la wareegidii kadib ee mahad xilka waxaa la qaaday tallaabooyin waaweyn oo ay ku jiraan kuwo lagu xiray shakhsiyaad ka tirsanaa hay'adda niisa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ilaa hadda waxaa lagu sameeyay isbeddel toos loogu beegsaday qaybaha muhiimka xilli ay soo baxayaan macluumaad caddeynaya in magacii niisa laga guuray loona guuray fiisa oo macnaheedu yahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka heer federaal ilaa hadda waxaan ogaanay inay jiraan shakhsiyaad ka tirsanaa hay'adda oo la xiray kuwaasoo aan la ogeyn ujeeddada ka dambaysa xarigooda isbeddelka ugu degdega badan ayaa lagu sameeyay qaybaha garoonka diyaaradaha ee niisa iyo gobolka banaadir taliyaha niisa ee gobolka banaadir waxaa laga qaaday sargaal magaciisa lagu sheegay maxamed cabdiraxmaan cilmi hore u soo noqday xoghaynta taliyaha niisa ee gobolka banaadir kana soo jeeday gobolka hiiraan waxaa lagu beddelay muxiyadiin warbac oo horey isla xilkan ra'iisul wasaare roob la amray in loogu magacaabo xilligii ay hayeen farmaajo balse ay shaqayn weyday magacaabidiisa waxayna isku deegaan ka soo jeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud imaanshaha warbac ayaa ku soo beegmaysa xilli dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dadka Soomaaliduba ay eegayaan hannaanka maaraynta ee hay'addan oo muddo dheer lagu eedeynayay kumilankeeda siyaasadda waa xilkii laga qaaday kabtan khadar maxamuud sanka oo ahaa madaxii niise ee garoonka muqdisho kana soo jeeday deegaanka xeraale ee gobolka galguduud kaasoo hayay bilihii ugu dambeeyey waxaa lagu beddelay korneyl cabdi xasan carabo oo ka soo jeeda koonfurta gaalkacyo horeyna looga qaaday madaxa hoggaanka baarista ee niisa taasoo ay isku khilaafeen ra'iisul wasaare rooble iyo taliyihii hore ee niisa iyaasin farey waxaan ogaanay in la xiray maanta madaxii qaabilsanaa la socodka qaybta alaabaha soo degaya iyo kuwa dhoofaya qaybaha loo yaqaano kaargooga ee garoonka aadan cadde ee muqdisho waxaana sargaalka la xiray magaciisu yahay jaylaani maxamed oo ahaa madaxii la socodka qaybtaas ilaa hadda lama yaqaano sababta loo xiray oo xariggiisa ka dambaysa sida macluumaadka aan ku ogaanay qaybtan waxaa inta badan ay la socotaa alaabaha soo degaya ee dalka soo gelaya gaar ahaanna maandooriyaha noocyadooda kala duwan aaladaha lagu haga qaraxyada ee remote controlka budada loo adeegsado qaraxyada ayay si gaara halkan uga bartilmaameedsadaan dhammaan ciidankii dharcadda ahaa ee joogay albaabada laga garo garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa hubka laga dhigay qaarna la kala diray kadib amar ka yimid ra'iisul wasaaraha iyo agaasimaha cusub ee niisa taasoo keentay inaysan weli caddayn hannaanka sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho sidaan ogaanay bistooladaha ay ku hubaysnaayeen waxaa leh hay'adda niisa waana kuwo casriya askari kasta oo loo dhiibay waxaa laga qoray qof damiinka ah qofka askariga ah kal hore markii ay hayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble waxaa jiray amar ka soo baxay wasiirka amniga gudaha oo lagu amray in hubka laga dhigo ciidanka albaabada aeroboortkana laga qaado ciidanka niisa go'aankaasi waxa uu noqday mid hirgeli waaye balse tallaabadaas ayaa hadda shaqaysay ciidankan la kala diray ayaa ah kuwo awood badan waxay inta badan si gooniya ula socon jireen cid kasta oo ay ka shakiyaan ayagoo inta badan ahaa dharcad aan la aqoonsan karin ama aan lahayn astaanta labiska ee ciidanka lagu garto ha yeeshee inta badan xubnaha midowgii musharaxiinta ayaa eedo badan u jeedin jiray hay'adda niisa oo ay ku sifeeyeen mid ku milnayd siyaasadda loona adeegsaday mararka qaarkood in diyaaradaha laga reebo dad u safri lahaa gobollo kala duwan oo ay ugu horrayso Gedo oo ay isku hayeen Jubbaland iyo dowladda federaalka